barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi ayaa maanta ku dhawaaqay liiska xubnaha gudida qabanqaabada munaasabada 18 May ee maalinta qarannimada Soomaaliland. Gudoomiye Xamse oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri Bismillahirrahmanirrahim. Sida ay wada ogsoonahay waxa inagu soo foolay 18 May sida daraadeed si aan ugu diyaar garowno xuska maalinta qiimaha leh ee 18 May 2006 oo ah maalintii la soo noqoshada qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland lagaga dhawaaqay magaalada Burco waliba maanta oo ay tahay xuskii 25 sano kadib oo ah rubuc qarni si aynu qiimaha ay leedahay maalintaasi ay nagu leedahay waxaan maanta ku dhawaaqaynaa gudida heer gobol ee qabanqaabada xuska 18 May heer gobol oo ka kooban 12 xubnood magacyadooda ay kala yihiin Cali Abdi Cabdilaahi gudoomiye ku xigeenka Xildhibaan Axmed Cali Maxamed Xildhibaan Limco Axmed Cabdi Xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Faarax Xildhibaan Cibaado Maxamed Cilmi Cabdiraxmaan Nuur Abakor xogayaha fulinta dowladda hoose Haweeye Cabdi Kaahin oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ee Naaw Khalid Mawlid Ismaaciil oo jaamacadda weeyaan dhiinka jaamacadda Cabdi Samad Sheekh Umar Gaalib isuduwaha wasaaradda waxbarashada Shabcaan Xaamid oo Maxamed oo kamida ururada bulshada iyo Kayse Xaaji Muuse Cilmi oo kamida gacsatada gudidaasi sharafta leh waxaan ku taakiidinayaa inay sida ugu wanaagsan ee ugu qiimaha iyo qaayaha badan ay u soo abaabulaan iskuna soo dubaridaan sidii ay ugu qabsan lahayn xaflad aad iyo aad u qiimo badan oo aynu ku muujinayno sida aynu ugu hanweynahay maalintan 18 May ee maalintii la soo noqoshada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inaga oo ka duulayna baaqi ay soo jeediyeen gudida qabanqaabada heer qaran ee 18 May ee ku dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Siilaanyo waxaan mar labaad idin farayaa inaad sida ugu wanaagsan ee ugu qiimaha badan aad u soo abaabushaan xafladan. Salaam Mukhtaar Nuux Ibrahim Hon Cable TV gobolka Gabiley.